ciidanka danab laguma aqoonin inay ka qayb galaan dagaalada dowlad goboleedyada u dhaxeeya iyo dowladda federaalka sidaba inay ugu lug lahaadaan oo kii Ras Kamboni u dambeeyay mayna ka qayb qaadan weydiideen kii ka dhacay gobolka Gado isna sidoo kale weydiideen kii ka dhacay isla Baydhabo weydiideen oo horaan oo maaragtay maxaan ku leedahay xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kii ka dhacay Galmudug oo Sheekh Shaakir lagu soo afjaray weydiideen booskooda waxaa galaysa ciidanka gorgorba inta badan galayay oo Turkigu tababaraan iyaga laftigooduna kumaandoos Turkigu gacanta ku hay maxaa iska bedelay jadwalkii ay ku socon jireen iyo nidaamkii ku socon jireen ciidanka danab oo ay wahaayeen ciidamo asturan oo ka bedelan la dagaalkooduna khawaarijta kaliya ku koobnaa maxaa bedelay oo maanta ku kalifaya inay koonfur galbeed qayb ka noqdaan dagaal waxa ka noqonaya waxa isbedelay bismillaahir rahmaanir rahiim kulan wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada barnaamijkeena ama qodobkan waxaynu ku falanqeyn doonaa ciidamada danab oo caawa habeenimo gaaray magaalada Buurxakabo iyo ciidamo kale oo aad u fara badan oo jidka ku jira magaalada Muqdisho ka soo baxay qaarkoodna ay ka soo baxeen xerada Balidoogle ciidanka commandoska danab ay saldhigoodii ciidamadaas oo dhan waxa loo ururinayaa dagaal iyo guluf ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qaadayso magaalada Baydhabo qodobka iyo qodobo kale oo soo raacayaan halka ku falanqeyn doona daqiiqadaha inagu soo foodle aniga iyo saaxiibkii Cabdiraxmaan Afakaadha ayaa ku falanqeyn doona Cabdiraxmaan soo dhawow maxaa u dambeeyay ciidamada gaadhay magaalada Buurxakabo waa ciidan noocee goormaysa soo baxeen waajibka ay wataan sabciye oo mahadsantahay Cabshakuurow wararkii ugu dambeeyay deegaanka Baydhabo labada dhanba isu diyaar garoobaya Soomaaliya sidaad ogtahay waxay leedahay ciidamo kala duwan kuwaan gart wadamadii yabyabka Soomaaliya ciidankeeda sameynayay yaa waxay yidheen Soomaaliya maadaama oo wadan dumay ay tahay burburay dadkii burburiyayna ay qayb ka yihiin wadamada dariska la ah wadamada dariska la ahina aynan ogolayn cudud military oo dhisanta inayna lahayn inayna yeelanin Soomaaliya inayna yeelanin ay rabaan oo in raali ka inay Ethiopia Kenya wadamada dariska oo dhani Soomaaliya cudud military oo yeelata aynan raali ka ahaanaynin oo ogolaanaynin Ingiriiska iyo wadamadii la midka waxay soo jeediyeen police aan dhisno awood badan oo military faraha laga qaado waan gartay police fala dhisa markii la yiri Soomaali way diiday wadamadii burburi jiray iyo dadkii soo dhisi jiray waxay yireen war sidan wax laga bilaabay policeku sidii military u shaqeyn sensitive ahaana magaca military uu ka leexsanaan waa police gaar police kuna waa madani police madani laakiin shaqooyinka military qabanaya hubkii military inta aan siinno sidii ku haysanaya laakiin magaca police ha qaato sida haramacdo kale waa police ahaan waa commandos danab oo kale waa ciidan gaar ah oo commandos waa police una laakiin military hoostagan danab hoostagan siyaabahaas oo kale iyo isagu rabay oo ciidanka xooga inaan magaciisa hadda laba soo qaadin buu rabay moogta saasaana kolka u dambeysay ay isugu soo biyo shubatay laakiin magacii baa wali ciidan qaran oo istaaga waa lalaay oo haysma ciidamo booliska iyo ciidamo maamul goboleedyo iyo jaan baa isgarab yaacaya dowladda Soomaaliya marka waxay leedahay ciidanka militariga iyo ciidamo kale oo commandos oo waaxa ah sida danab iyo haramcad iyo gorgor iyo waxyaabaha noocaas ah taliyaha ma hadda gorgor oo kale iyo danab oo kale taliyaha ciidanka lugta ma hoostagaan toos waxay hoostagaan taliyaha ciidanka xoog hoostagayaan sargaalkooduna waa sargaal oo taliyaha ciidanka xoog soo magacaabo ay madaxweynuhu soo magacaabo isaguna oo maaragtay ka madax banaan ciidanka lugta marka dadka specialka ciidamada gaarka ah leexleexsan iyo ciidanka militariga wadamo yaa inta badan dadana oo kale Mareykanka si toos u hoostagaan oo caawimaadooda iyo mushaaraadkooda iyo tababaradooda iyo diyaaradahooda dhammaan waa qalabka Mareykanka qalabay gacanta ku haya diyaaradaha danab soo qaaday ee ka soo dega Kismaayo waa diyaarad Mareykan ma diyaarad Soomaaliya leedahay diyaaradii waa weynaa madaxweynaha Mareykanka yaa qaada kuwa ay tababaraan iyo waxa soo dhan saasayeen ciidamadii noocaas ah dhammaan way ruqaasadeen shacabka iyo mas'uuliyiinta inta aniga gaar shacabka su'aalan ku weydiiyo ciidanka danab laguma aqoonin inay ka qayb galaan dagaalada dowlad goboleedyada u dhaxeeya iyo dowladda federaalka
sida baan ugu lug lahaadaan oo kii raas kamboni u dambeeyay mayna ka qayb qaadan weydiideen kii ka dhacay gobolka Gado isna sidoo kale weydiideen kii ka dhacay isla Baydhabo weydiideen oo horaan oo maaragtay maxaan ku leedahay xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kii ka dhacay Galmudug oo Sheekh Shaakir lagu soo afjaray weydiideen booskooda waxaa galaysa ciidanka gorgorba inta badan galayay oo Turkigu tababaraan iyaga laftigooduna kumaandoos ah Turkigu gacanta ku hay maxaa iska bedelay jadwalkii ay ku socon jireen iyo nidaamkii ku socon jireen ciidanka danab oo ay wahaayeen ciidamo asturan oo ka bedelan la dagaalkooduna khawaarijta kaliya ku koobnaa maxaa bedelay oo maanta ku kalifaya inay koonfur galbeed qayb ka noqon dagaal waxa ka noqonaya waxa isbedelay taliyaha qaybta iyada ah weerar hadda qaybta Kismaayo joogtay eedana bayd mayna weerar tamin taliyaheedana weerar baa lagu yiri isaga diiday isaga dooraan ciidanka madax banaan baan ahay waangar uu diiday taliyaha marka iyada ah hawshaas la adeegsanayo yaa ama amarka qaadanaya ama diidaya laakiin bataata waxaad moodaa ciidankaas hadii uu hadda hawlgalka ka qayb qaato hadda buurax ka dageen beri dambana way ka sii baxayaan siiba beri baa leeyahay inay caaw guraan way u badan tahay baa leeyahay abshakuur waxa xusid mudan ciidamadan duulaya ee dhulka maraya horay baa loogu kari waayay inay dhulka maraan oo ay Baydhabo tagaan iyadoo nabad leeyahay al-shabaab bay ka cabsanayeen hadda al-shabaab joogan miya wataan garan lahay al-shabaab iyo sida la isku loo dhaxmariyay ciidan lugaha yaani Muqdisho ilaa Baydhabo yaa lugteedii dhulka la maraya horaana diyaarad dad lagu gumaysto oo qiimihii la doono laga sameeyaa koobada sonkorta lagu qaadayay laga qaado Muqdisho ee Baydhabo la geenay lug oo dhan way xidhnayd nin uunan al-shabaab fasaxin meesha muuna marayn al-shabaab haysatay dhulka waan gartay marka waxa leedahay shabaab iyo socodkan ciidamadu waxba iska qusay يعني haddii xataa una wax iska qusaynin awoodda ku banaysteen baa la dhihi karaa tusaale ka soo qaad awoodda baan adeegsano hadday awood ku badaysadaan su'aal baa dul taala oo sabab bay horaan ugu banaysan waayeen haddayna ogoleen inay joogaan horaan maxay ugu banaysan waayeen haddii ay heshiis ku mareenna kaba sii daran laba jeeraba waa hoogun laba jeeraba mar hadday heshiis ku mareenna kaba sii daran haddii ay awood ku mareenna kaba sii daran laba jeeraba way calaamad su'aal dul taala sababta lug ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu mari waayay markii shacabka iyo maxasta iyo maamulka iyo ageysimayaasha iyo dhaawaca aan diyaarad raaci karin la oranayo diyaarada in raacan lagu qasbay waliba diyaaradana lafta garan oo tigid gooye ka ahay ruuxuna ciidanka xoogga dalku joogeen ay wala weyn ceyrsanayeen kuwii dadka laayay waan la meel kaga daba tagayeen afgooy marka dhaafan wala weyn gaaraan meena dhaafeen wixii wala weyn ka sheeyay ilaa baashi Baydhabo way go'nay ha go'naatee maanta xoog baa lagu furay bay ka dhigan tahay maxaa shilay xoog loogu furi waay oo lagu tagay ilaa baashi ka soo qaado lug baa loogu tagay intii buurax gaba laga tagaa lafta garan lug loogu tagaya shalay maxaa lugtaas loo marin waayo oo wadada ay u furmi weyday arrin adag baa meesha ka taagan ciidankaas danab ee Mareykanku qalabeeyo ee Mareykanku gacanta ku hayo hadii uu ku mulmo siyaasadda guracan ee shakhsiyaadka ee lafta garan iyo Xasan Sheekh Maxamuud isku hayaan waa musiibo kale oo iyadan u soo yeetay ciidamada iyo dadkii taageeri jiray waxayna u badnaan doontaa in ciidankaasna black listiga ciidamada maxaan ku dhahay aan sumcad lahayn la gadin doono haram cad farmaajo ku qabaystay way boodboodeen way ordeen isla mar ahaantiiba way sumcadda ka dhimatay kadibna Xasan baa u sii dhameeyay raas Kamboni buumihii kaga soo siibay sidoo kale gorgor waa ciidanka raas Kamboni ka dagaalamay muuna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayna gorgor muuna ahayn ciidanka ugu faraha badnaa meesha gorgor iyo haram cad yaa u badnaa taliyahoodii waa haram cad lagu ku fakaday oo ku waxaysmay gorgor baa iyadana taliyaheed oo ku waxaysmay taliyafana oo isagana inta aragtay intii la qabtay waliba la garan waayo intii saa looga dhaqaaqay fakaday oo la qabtay isagoo nool nimankii marka nooca ugu ceeboobay listadoodii inay dabada ka galibad moodaa danab oo ay ku beerayso dhanka kale iyo danab armee hawlgal kala u tagaysaa inaan la hubin inay hawlgalka u tagayso uu yahay waxa la tibaaxaya uu yahay oo san ahayn dagaalkaas uu ahayn hawlgal kala u socotaa maadaama dalka Soomaaliya meel kasta ay tagi karaan oo waxa la tibaaxaya in waliba qaabka iyagu u dagaalamayaan aynan furinta galaynin laakiin ay duqeyn doonaan oo dhowr iyo 10 daroon intii la kiciyo labada ciidan isdagaalaya ay ka shishe dhabar jabinayaan oo duqeynayaan inta waxba loo soo diri karay hadii dagaalka galayn inta waxba loo soo diri karay moogtahay hawlwadeeno gooniya oo daroondooda diyaarad loogu soo raro oo hadaysan dagaalka galaynin dagaalka qayb ka ahayn dagaalka qayb ka noqonin galisti way noqonuno
boqolka nin ee xabadda ridaysa iyo boqolka daroomada ka daba kicinaysa haddii kuwa la soo jabiyo kuwan baa ilaa difaacaye marka galidda way ka mid tahay aduu danab inay galaysa u badan tahay si kastaba ha ahaatee dhanka kale abaabul waxaa ka socda magaalada baydhabo dhexdeeda aad u kulul oo nimankii maxaan ku dhahaayay saransoor iyo nimankii murashaxiinta ahaayee tagay lafta gareen la tartamay mursal iyo doorashada iyagu inay dhacda rabay ee la tartamaya ninkaas inay kursiga madaxweynenimo ku soo baxaan rabay waxay ku baydhabo bartankeeda dadka uga jeedinayaan dagaalkii salbalaad ee caydiid nagu soo qaaday oo kala weeye iyo kuwa shalay mucaarad ku ahaa loo diidanaa inay baydhabo tagaan wixii qadiyada qabiilka ka weynaatay waxay dhigeen dagaalkii salbalaad kii iyo kan salbalaad markii 97 dhacay caydiid uu ku soo qaaday raxweyn oo qabiil uu soo adeegsay isagoo qabiil ah kii weeyaan bay dhigeen horta macnaha yaa fahma كاي محاسك maadaama oo ka uu yahayna dowladda federaalka Soomaaliya socota afkaadho meesha waxa markaan waxay ahayd qabqablayaal baa jiray federaal waxa isku ah Hargeysa iyo Garowe iyo Kismaayo iyo Muqdisho isku jira Soomaaliya joogan hada isku jiraan yaa kale isku jiraano Axmed in dagaalkan la galo ma ogolo Dani in dagaalkan la galo ma ogolo Cirra in dagaalkan la galo ma ogolo qorqor in dagaalkan la galo ma ogolo yaa ogol waxa shaqkii kuwaas kulkii hore filaageen moogtahay maya filaagada federaal hadad maqasho federaal hadad maqasho filaagu ahaa now marka nimankaas markii hore way diidanayeen kala saar federaal erayga federaal ee adeegsatay dawlad federaal erayga ee adeegsatay federaal magiciisu wuxuu qaadan karaa Xasan Sheekh Maxamuud markuu wato go'aanka intaas oo dhan miraas asayri la raas kamboon go'aankeeda markuu wato yu federaal noqon karaa inta uu nin maqan yahay federaalnimadii weysada way ka jabtay cid dagaalkan ogol oo maamul goboleed kala cali gudlaawan Allah ka yeelo on Xasan Sheekh Maxamuud hayna ma jiro dagaal marka dawlad federaal ay soo qaaday maaha ee shakhsi baa soo qaaday waliba ma cadeyn kara inuu qabiil soo qaaday Xasan Sheekh Maxamuud inuu qabiilkiisa abgaal inuu ku taageersan yahay ma hubo hadii xataa la oran lahaa caydiid oo kale kaadi gudoomiyaha gobolka Shabeellada hoose wuxuu yiri gaadiidka dabaabaadka Turkigu bixiyo ee ciidamada idin yimid danab iyo gorgor ay wataan idinka la idin keenay reer buur xakaway iyo reer baydhabo darwaladeena idinka ka noqon doona hal idinka la isku difaaci doona idinka iskala la idin kuma layn doona markuu leeyahay gaadiidka Turkigu bixiyeen maaragtay maxaan ku raday idinka la idin keenay meesha u muuqanin saanad ka maqnayd iyo wax ka maqnaa oo xaq u lahaayeen in loo geeyay maaragtay maxaan ku raday koonfur galbeed kuwa kale ee laga soo furanayo ee lafta garan haystana waa hubkii ciidanka qaranka kana waa hubkii ciidanka qaranka dawladihii bixiyeen waxay ugu tala galeen in lagula dagaalamo al-shabaab iyo wixii amniga khatarta ku ah ee in wiilal raxweyn oo masaakiin oo ciidanka qaranka kamid ah oo ciidankii koonfur galbeed oo meesha iska fadhiya in lagu gumaado intaas oo dhan loo dhaarto umayna bixin maamul iyo waxa maamul baa isleenaya raxweyn iyo meesha abgaal islaynayaan inay islaayaan baba qalada maamul siciidani muu ka amar qaataa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh doorashada miyuu isaga uga amar qaatay Xasan Sheekh oo diidan Soomaaliya doorasho qabanin uu soo bixin miyuu ku duulay uu gaari karo daad kana waan gaari karaa marka tan uu gaari karaa gacanta gaari haduu gaari kara tan maamul tii siciidani baa la dhahaa khilaaf maamul kadibna inuu ku qasbanaado casuumaadiisa inuu tagay cali masaarkiisa hadii lagaga guuleysto laakiin ciidan baa ku siino ku xaysmi ma aha dan kala meesha ka socoto waxaad moodaa waxyaabo kale oo hadda tan ka hooseeyo oo fara badan yaa jira intaan aragna wax weyn baa ka qarsoon waayo inta qarsoon xildhibaanadii aad warkooda ka soo dhaxgalay ee waday xildhibaan kamid ah oo marinaya Cabdinuur inuu yahay ayaa wuxuu meesha hadal ka jeediyay wuxuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu rabaa dagaalka salbalaad kale inuu soo qaado Shabeellada hoosana wuxuu rabaa inuu gobolka Banaadir ku daro oo uu ka jaro koonfur galbeed waa qorshe Xasan Sheekh Maxamuud duulimaadka lagu soo qaado hadalladaasina way soo noqnoqdeen gobolka Shabeellada hoose Xasan maagan yahay sababta Shabeellada hoose waxa goonida ku ah ee koonfurta galbeed kale aan gooni ku ahayn hayta waxa gooni ku ah hayb ahaan baa laga yaabaa inaynan is ahayn oo kan kalena inay qabiilo gaal jecel iyo something iyo qabiilo kale ay degan yihiin oo Soomaalida kala ah kana bay iyo bakoolna ay raxweyn u gaartaa laga yaabaa marka qabiil ahaan inay loogu baroor darsano isagoo dhihin bal si erina waa laga yaabaa inuu yidina waa laga yaabaa aanana waa tawafalaadka Xasan way tahay si kastaba ha ahaatee ninkaas xildhibaanka hawsha sheegaya haddii ay runtahay Xasan uu ka maqlay iyo haddii uu ku kaambeyn garay samba Xasan taa wax ka weyn buu rabaa inuu shabeellada kaliya inuu goosto ma rabo shabeellaba muxuu ka sheegay shabeella haddii intii la goosto la daayo baydhabo loo daayo yaa caawiya baydhadii baa lagu socdaa la joogaaba waxaan muuto wadalladan oo dhan oo urkacsiiyay Xasan ciidamadiisu maanta buur hakabay joogaane ma shabeellay ku ekaadeen way soo dhaafeen baydhabo ay ku socdaan
marka baydhabo inuu ka hadlo weeyaan shabeellaha la goynayaa baydhabo maamulka dhanaa la wareegayaa baan ku barooraynaa mad ninka maamul goboleedkan moogtahay waa la ekeysiino marka baydhabo la yimaadeen maamulka la bedelo maamul isaga uu xasan maaragtay uu gacan ku samayso gacan ku ramiso halka uu ka sameeyo waa soo hadalka u dhigay wuxuu rabaa inuu maamulka ka ansixiyo in ay shabeellaha hoose la jaro lagu daro gobolka banaadirna uu maamul goboleed dhamaystiran noqdo kuwana maamul goboleed dhamaystiran weeyaano waa Bay iyo Boqol gobolka banaadir maadaama wax lagu ladho kala jirin oo galmudugna waxba looga soo jari karin meel kale waxa looga jari karana aysan jirin meesha kaliya wax looga jari karaa ay tahay gobolka banaadir haddii dhulka loo ballaariyo isaga ugu yaro horta dhul ugu baahan haddii dhulka loo ballaarinayo isaga ugu yaro dhul u baahan haddii maamul goboleed ahaan maamulna hadda kaba maqno shirka madashana wuu fadhiyaa saami madaxweyne la egna gudoomiyihiisa gobolka yaa federaalka uga qayb gala wax badan baa ka maqan gobolka banaadir xildhibaanada maamul goboleedyada waxaan waxba ka yarayna oo gobol banaadir la yidhahdana uu ku helaa oo weliba qowmiyado kala duwan oo jareer weyne iyo shaashi iyo hebel iyo qoys ka soo galaa sheekhaal ka soo gashaayo sidiisanuba isugu filan yahay culays iyo xalala soo doonan dhib iyo qarax baa la soo doonan iyo dhul badan oo al-shabaab haysato aniga marka hawshan way soo noqotay ninkii la oran jiray abaabulna uu ka dhawaajiyay in koonfur galbeed deyn kaga maqan tahay isagoo hawiye ah oo qabiilkii u ahaa ninkii maartay nabadoon abaabul inay deyn kaga maqan tahay madaxweyne ku-xigeenka ay leeyihiin yuu sheegay codkiisii uu codowdu u dambeeyey madaxweyne ku-xigeenkana inuu Shariif Sakiin u ogolaaday kor loo hayo yuu sheegay koonfur galbeed ma wala madaxweyne ku-xigeen kor baa loo hayaa dastuurkooda ku jirtaa laakiin male ilaa hadda lama sameyn kor baa loo hayaa lafta gareenow dhulka dhig buu yiri waxaan u malayn waxa loo magacaabi lahayaa isku haysadka inay tahay haddii marka nimankii madaxweynaha sheeganayay ay gobol la go'ayaan oo madaxweyne ku-xigeenka ku bedelanayaan iyo haddii ay xisaab hoose jirto kulley aad uma sii faaqidi karno laakiin waxaan faaqidaynaa in xasan uu duulay isagoo shakhsi ah uu koonfur galbeed ku duulay oo nabad aha oo dhib ka jirin inuun al-shabaab ka xoreynaynin maamulkooda iyo nabadooda inuu u waayo cabdicasiis lafta gareen oo wax gaar uu galay ayna jirin hadduu sharci darro ku joogana sharci darradii shalay xasan uu kula joogo ku shaqaynaya ay tahay haddii maxaan ku dhahay la dooranayaan ciddii la tartamaysay ee xasan safkiisa ahayd ee mursal iyo sanasoor iyo kurti ay la joogaan oo garabkiisa taagan yihiin inuu xabad inuu riday isagoo 80 jir maanta uu dhiig dhalinyaro Soomaaliyeed isku daadiyo uu rabo oo waliba xabadaasi in lagaga soo adkaan ay u badan tahay oo haddii dagaalku uu ballaadho oo yaa qawmi ay ka dhacdo raxan weynimo la eri kara aynan ahayn oo iyo macal haweenkooda ay mindiyo wataan oo ninkii soo duulay iyo nin loo yimid ninka soo duulay uu mar walba jabayo yaan ognahan cadaynayna waxay dhaheen waa sharci fulin waana marka oo maaragtay maxaan ku raadayay xaaladahan oo kala yimaadaan awood ba sharciga lagu fuliyaa federalismka la gaadhsiinayaa baydhabo ee wax lagu leynayo iyo wax kale midna ma jireen sharciga la fulinayaa waajibaadka sharciga naga saarnaa fulinaynaa dowladda federaalka sharciga uu fulinaya baydhabo ka fulinaya garow mu ka shaqeeyo Kismaayo mu ka shaqeeyo Hargeysa mu ka shaqeeyo oo soo socda Kismaayo maanta soo gudoomiye soo kii wasiir ku-xigeenku sheegay lahaa Kismaayo inta ma dhanne kol boqoladiisa baa bisha qabsatay been iyo war taana ciidan soo ku dhex sameynaya ciidankii xoogga dalka Soomaaliya laga dhaxmurayo Puntland waxba kama jiro Soomaaliland soo ka kala jaray ay ku guuleystay maamulka dhex sameeyay meena shaqo socotaa in waxa soo dhan waxa shaqo maxuu qabanaya waxba kama jiro Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu qabanayaan ognahay mudaxileedkiisi waa dhamaaday bil iyo dhowr habeen baa ka hadlay bil iyo dhowr taa habeen sanad baa waray uu kaadiyo bil iyo dhowr kala og yahay sanad baa waray maaha intuu xoog ku haysan kara ha haysto 10 sano haysan kara xoog laakiin intii la isla ogaa ee dastuurka ku qornay sawka dastuurka cusub uu farayo in sanad uu sii joogo gudoomiyaha baarlamaanka in la waxa dhamaanaya oo sharci haysanaa dastuur ma lagu qoro sanad buu sii joogo ninkani dastuur wax ka weyn oo waa 5 sano 5 sano laga dhigay dastuurka waqti hada 5 sano dastuur xilaadkii 4 sano aha hada 5 sano laga dhigay dastuur wuxuu dhaqan galaa ninka ansixiyay ka dambeeya ku dhaqma kan waxba kaga dhaqmi karo qodobadan oo ansixiyay hal qodob kaga dhaqmi karo sharciyan ba adduunka waa sidaas nin dastuur uu sameeyay mudaxireedkiisa dhaqan gelin karay maba jiraba waa weysa jaban suura galna ma ah gudoomiyaha baarlamaanka soo keenay lahaa maanta hadduu baarlamaanku ansixiyo madaxweynaha saxiixaysa loo baahnaa isla maanta dhaqan galnay hadduu dhaqan gal noqdo inuu dastuur jiran hadduu dhaqan gal u noqonayaa hal qodob oo kamid ah madaxweynaha ansixiyay sanadkiisii u horeysay haday tahay hal qodob oo kamid ah kuma fulin karo
وانا sidaas aba dastuuriyada hadii uu sameyn lahaa wax isaga la jaan qaadayna uu dhaqan geliyo aqli ma moogta aqligu xataa ma ogolaanayo dastuur ninka wax ka bedelay ma fuliyo dhaqan galkiisa waxa dhaqan geliya ama uu qabanaya ka dambeeyo haday 5 sano tahay ta isaga ka dambayso 5 sano u noqon hadiiba uu dhaqan gala dastuurkaasi laakiin isaga kii hore 4 sano ah ya dhaqan gelinaya sanadka shanaadna ee lagu kala baxay adoo soo koobaya guluf ka socda ciidanka danab oo tagay caawa ugu dambeyn magaalada Buurxakabo gorgoro maanta madaxeedii gaari kuwa kale oo dhaxda ku soo jira kuwa shabaab baa dhaxda ay isku laayeen leeyahay laftigooda iyagu soo socdo laftigooda ka soo baxay balidoogla ka soo baxay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee furmaha ku jira oo gaadiidkoodii ay ku dagaalami lahaayeen meelo fara badan dawladdu ay ka soo daadgureynayso koonfur galbeed oo istiyaarisay oo direysay xidhan murashaxiintii la tartami lahaa waliba kursiga kuwii kula tartami lahaa lafta gare waxaas oo dhan kolkaas isku geeyo waxay kula muuqataa in ay waan imaan karto in la wada hadli karo in xabada laga baaqsan karo muddo intee leeg bay kula tahay inuu gulufkan sii socon karo bal maxaa muuqda warta dagaalkan iyo qiiqdan iyo huudan hal week dhaafi mayso waana way dhaaftay hadda waan ma jirto ninkii adkaan uun mooyaane wax waan oo hadda jiri kartaa ma jirto raxan weynna dagaalkan inay gasho ilaawo iyo luglaawo iyo haween iyo rag iyo curyaan iyo sheekh iyo kurti inay wada galaan go'aan bay ku gaareen xasan sheekh maxamed dagaalkan inuu galo go'aan ku gaaray madanab iyo gorgor bay iska celin karaan food ya madanab iyo gorgor bay iska celin karaan garaskan booni wixii laga soo eriyay Kenya oo galay danab iyo gorgor bay ahaayeen tanab kuma jirin waya de la midun kuwan bay ahaayeen moogta dhalinyarada bay ahaayeen inay dress kala bedeshaan mooyaane baa la iska celin karaa nin raxan weyn RRA oo tan iyo 9-meeyadii soo dagaalamay oo jiirhan ku weynaaday ah iska celin maayo ciidan military oo caaw meesha qabsadayna shacabka deegaanka iyo carrada la dagaalamaysa kuma adkaan karo mana qabsan karo waxaan aaminsanahay dagaal qadhaadh inuu ka dhici doono lafta gareena inuu tanaasuli lama doorashadaana uu qabanaya sida ay u socoto hadii doorashadaas ay sida nabadda ugu dhacdana lafta gareen waa sii xididaysanay 20 sano oo dambe yaan laga furfuri doonin iyadoo hadda war madaxilaadkaagana isdooro kadibna si uun loogu taliyay uga wacnaan lahayd xasan sheekh maxamed hadii uu tabar iyo tayo iyo aqli mid uun leeyahay waagii uu cusbaabo ninkan doorasho ku erigi lahaa ay is ogolaayeen laakiin hadda oo la kala shakiyay kuma eri karo aad baad u mahadsan tahay inta waxaan ku soo afmeeraynaa qodobkii aan kaga hadlaynay ciidamada danab oo gaaray magaalada Buurxakabo iyo ciidamada gorgoro laftigooda ku sii sognaa magaalada Buurxakabo iyo guluf colaadeed oo isu burursiyo deegaanka ka jira ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in xabad halka ka dhacday in wiilal Soomaaliyeed ayna ku dhimanin aqliga uu soo celiyay madaxda Soomaaliyeed kursiga isku caydsanaysa sababta wiilasha halka ku dagaalamaya midna kursi ma rabo midna kursigaas kama faa'iido doono marka intaan qodobka xiga isugu imaan doono waxaan idin leenahay meel aad joogtiinba nabad ahaada